magacaygu waa Taaniya waxaan ka shaqeeyaa shirkadda Cisco halkaan uma joogo inaan wax ka soo horjeedo ama inaan doodo dadka badankooda gaar ahaan muslimiinta waliba muslimiinta kaliya markasta waxay dhahaan maadaama tahay Christian Catholic ah waxa lagu geyn doonaa jahannama anagana waxaan kugu yeereynaa islaamka si aad jannada u gasho anigu diin ahaan waxaan ahay Catholic waxaan isku dayayaa intii tabarteeda ah si kas ah dambiyada uma sameeyo wali ma waxaan galayaa naarta sababtoo ah inaan ahay Catholic haddaan islaamana jannadan aadayaa miya walaashu waxayna weydiisay su'aal waxay tiri saaxiibadayda muslimka ah waxay igu yiraahdeen maadaama aad tahay Christian Catholic ah waxaad aadi doontaa jahannama oo marunba inay jahannama aadi doonto walaashay haddii aad si sax ah aad u raacdo wixii ula yimaaday nabi ciise calayhi salaam insha Allah waxaad geli doontaa jannada laakiin waa haddii aad si sax u raacdo nabi ciise calayhi salaam nabi ciise waxa uu yiri calayhi salaam xaqa ayaad ogaan doontaan xaqa ayaana idin xoreyn doona hadda anigu ma ogi yaad raacsan tahay ma kaniisada mise waa nabi ciise haddii aad raacsan tahay kaniisada suurtagalnimada inaad jahannamo gasho aad ayay u badan tahay haddii aad raacsan tahay nabi ciise calayhi salaam insha Allah waxaad geli doontaa jannada haddii aad akhriso kitaabka Bible-ka ah waxa jira hadal u qaas ah nabi ciise calayhi salaam ma garanayo inaad si fiican u taqaan kitaabka Bible-ka ah hadalada nabi ciise kitaabka Bible-ka ah waxa lagu qoraa qalin casaan ah ama qad gaduudan walaashay ma waxaad aaminsan tahay nabi ciise inuu yahay ilaahay xoogaa yar shaki ay ugu jira laakiin ma doonayo inaan ka hadlo maya anigu waxaan ku weydiinayaa ha oo maya waa lama hubo miya maya anigu cilmi ahaan ma aqaano anigu kuma weydiin inaad taqaanay in kale walaashay anigu waxaan ku weydiinayaa adigu ma aaminsan tahay waan aaminsanahay sax sugitaankiisa dib ayay ku noqon kartaa anigu kuma weydiin waxaad ka taqaano walaashay mid aan kuu sheego islaamku waa diinta kaliya aan ahayn diinta Kristiyaanka waa diinta kaliya ee qof kasta oo soo gala ku qasbaysa inuu nabi ciise jeclaado qof kasta oo aan aaminsanayn nabi ciise ma ahan muslim dhameystiran wuxuuna ka mid yahay rususha ulul azmiga waxaan aaminsanahay mucjisadii uu ku dhashay sidoo kale aaminsanahay inuu yahay masiix waxaan aaminsanahay inuu kuwa dhintay ku nooleen jiray idinka ilaahay waxaan aaminsanahay inuu daweyn jiray camoolaha iyo baraska idinka ilaahay tiyaanka iyo muslimiintu hadda hal meel ay isku raacsan yihiin waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso halkeebu ka jira khilaafku walaashay badanaa Kristiyaanku haddii aysan ahayn dhammaantood waxay aaminsan yihiin ciise inuu yahay ilaah weyn waxay aaminsan yihiin ciise inuu sheegtay ilaahnimo run ahaantii haddii aad akhriso kitaabka Bible-ka kuma arkaysid hal word midaas oo cadaynaysa hadda waa hal word oo aan shaati loo gelinin weedhaas oo ciise naftiisu uu ku leeyahay eebihiin waa aniga ee caabuda walaashay haddii aad awoodo hal weer inaad naga tusto hadda waa hal weer taas oo aan loo gelinin shaati meeshaas oo uu ku leeyahay nabi ciise aniga ayaa eebihiin ah ee caabuda haddaad i tusto waxaan diyaar u ahay anigu inaan noqdo Christian run ahaantii markii aad akhriso kitaabka Bible-ka anigu kama hadlayo hadalka waan ku siin doonaa walaashay waan fahmay jawaabta haafkeeda baad heshay waan ku dhameystiri doonaa walaashay waan ku sheegay haddii aad noqoto Christian dhab ah waxaad geli doontaa jannada laakiin adigu ma taqaanid Kristiyaanka saxda ah ee xaq ku sugan ciise waxa uu leeyahay Yuhanna chapterka 14aad aayada 28aad aabahay ayaa aniga iga weyn Yuhanna chapterka 10aad aayada 28aad aabahay wax walba ayuu ka weyn yahay chapterka 12aad anigu waxaan ahay ruuxda ilaahay shayaadiintana waan bixin doonaa chapterka 11aad ilaahay awoodiisa ayaan shayaadiinta ku bixin doonaa chapterka 5aad ma awoodo nafsad ahaantayda inaan wax ku sameeyo anigu doonistayda kuma socdo doonista rabbigay ayaan ku socdaa rabbigay doonistiisa baan ku socdaa qof kasta oo dhaha anigu doonistayda kuma socdo waxaan ku socdaa doonista ilaahay kaasi waa muslim nabi ciisena maadaama uu sidaas dhahayo waa muslim sida ku cadba chapterka 14aad hadalka aad maqlaysaan ma aha hadalkayga ee waa hadalkii eebihii soo diray aniga sidoo kalena chapterka 2aad aayada 22aad waxa uu ku sheegay dhageysta raggii reer bani Israa'iilow hadallada aan idiin sheegi doono aniga waxa la iga soo diray xagga eebihiin midkaas oo ku socda awoodda eebe iyo aayaadkiisa marka nabi ciise wuxuu idin tusay xagga ilaahayna oo idinka tusay cajaa'ib iyo awoodda ilaahay isagoo adinka idinku dhaxnoolo saad ogtihiinba adinku waxayna ognahay nabi ciise inuu ka mid yahay rususha loogu jaceylka badan yahay xagga ilaahay
nabi ciise anagu waynu jecelnahay sidoo kalena waxaynu raacaynaa wuxuu la yimaaday hadaad isla barbardhigto kitaabka baybalka nabi ciise waxa uu ku yiraahday calayhi salaam shalayna waxaan idiin sheegay muslimiinka ahaan inaan raacsannahay nabi ciise calayhi salaam waxa uu la yimaaday waxa lagu sheegay chapter of Luke nabi ciise in la dahiray maalinka 8aad muslimiinta anaga ahaana waan dahirannahay inta badan kristiyaanku ma dahirna iyagu nabi ciise waxa uu yiri ha u maleynina inaan u imaaday in aniga waxyiga buriyo ama aan ambiyada naaqusiyo ee waxaan u imaaday inaan kamilo oo dhameystiro waxay la yimaadeen sidoo kalena chapterka 14aad aayada 8aad sidoo kalena chapterka 65aad 2 ilaa 5 chapterka 11aad 7 ilaa 8 hilibka doofaarku waa idinka xaraam anaga muslimiinka ahaan ma cunno hilibka doofaarka laakiin kristiyaanku badankood way cunaan kala chapterka 5aad sidoo kale chapterka 20aad aayada 1aad qamradu waa idinka xaraam muslimiintu ma cabaan qamrada laakiin kristiyaanku hadiiba kristiyaanku uu yahay in la raac nabi ciise calayhi salaam muslimiinta ayaaba noqonaya kristiyaanka saxda ah ee raacsan nabi ciise calayhi salaam hadii aad noqoto kristiyaan sax ah oo raacdo nabi ciise calayhi salaam wixii uu ku sheegay baybalka waxa uu ku yiri chapterka 16aad aayad 7aad nabi ciise waxa uu ku yiri calayhi salaam waxaan idiin sheegayaa xaqiiqada inaan idinka taga ayaa idiin roon hadaan idinka tagin la idima soo diraayo kii idiin roona hadaan idinka tago waa la idiin soo dirayaa Yuhanna chapterka 16aad 12 ilaa 14 arrimo badan ayaan doonaya inaan idiin sheego laakiin adinka ma xamili kartaan laakiin markuu idiin yimaado kii ruuxa xaqa ahaa kaas ayaa idinku toosin doona dhamaantiin wadada saxda ah waayo isagu iskama hadlayo wax kasta oo ku hadlay wax isaga loo waxyooday midkaas ayaa sharfaya nabi ciise calayhi salaam ayaa hore u sheegay inuu iman doono nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadii aad adigu tahay kristiyan dhab ah oo aad aaminsan tahay ciise calayhi salaam waa inaad aamintaa oo waajib kugu ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadii aad tahay kristiyan dhab ah waxaad aamin doontaa nabi maxamed waxaad nageli doontaa jannada insha Allah waxaan filayaa inay ka jawaabo su'aashaada